ku soo dhawow channelka Galgala News taabo calaamada guduudan ee subscribe kadibna ku dhufo gambaleerka si aad u heshid mar walba barnaamijyada iyo wararka aan soo gelino Galgala News. dawladda Turkiga ayaanu in badan ka wada hadalnay iyadoo oo doonaysa inay kaligeed ina dhexaadso inaga iyo Soomaaliya hase yeeshee annagoo dareensan 7 sano oo Turkigu arrinta ku jiray in aanay wax midho ah dhalin waxaanu ku talinay in arrinta wada hadalku ay noqoto mid ay goobjoog ka ahaadaan ka wada noqdaan dhammaan dawladaha iyo ururada caalamiga ah ee arrinta wada hadalka u diyaarka ah ama daneeya waxa si toos ah noola soo xiriiray dawladda Sweden iyo dawladda Switzerland oo mid waliba gaarkeeda diyaar ugu tahay inay wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ay martigeliso Somaliland way aqbashay labada martiqaadba waxa muuqata in caalamka badankiisu garwaaqsaday in la joogo waqtigii la kala guri lahaa Somaliland iyo Soomaaliya annagu xukuumad ahaan waxaanu qaadanay siyaasadda ah in mushkiladda loo galo si nabad ah oo lagu dhameeyo wada hadal iyo nabadgelyo mar walba waxaanu ka fogaanaynaa wixii keeni kara xasarad iyo colaado hor leh maadaama Somaliland ay waaya arag u tahay riiqda colaadaha Soomaaliya waxaanu xad kala leenahay maamul goboleedka Puntland waxaanu u haynaa Puntland walaalnimo iskaashi iyo nabadgelyo waxaase maalmaha dambe soo kordhaya ciidamo maamulkaasi ka mid ah oo ka soo gudbaya xadka inoo dhaxeeya falal nabadgelyo darra'ana ka sameeya gudaha Somaliland Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaato wixii nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka waxyeelaya